magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorshaysan waxaa la barakiciyay shacab waxaana khatar la geliyay naftooda iyo hantidooda su'aashu waxay tahay yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan yaa dhaqaalaha ku bixiyay ka dawlad ahaan markasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho ha ugu horeeyaan carruurta iyo waayeelka waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga lexjeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad waala dad aan wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taasna weeye waxa la yiraahdaa metropolitan caasimad ummad dhan ay wada degan tahay sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimadda noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helinno xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeena ah shisheeye uusan nooga faa'iideysan aanu dhexdeena ka xalisanno si dawladdeena curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay Allah ha u naxariisto intii ku dhimatay intii dhaawacantayna Allah ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay waxaanu go'aansanay inaan xalka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiiga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena